بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا وناكسن داوديال ميل والبواد joogtaan waa mar kale iyo barnaamijkeena falanqeynta xogta caalamka oo aynu diiradda ku saari doonno naati iyo Mareykanka oo si kulul uga hanjabay Ruushka kadib aftida madax bannaanida ciidamada Ukraine oo guulo waaweyn ka sheeganaya dagaalada culus ee ka soconaya dalkooda ee ay kula jiraan Ruushka xog iyo macluumaad buuxa ayaan idin heenaaye mar kale soo dhawaada daawad hadaan nagu cusub tahay nagu soo biir channelka subscribe inoo saar faragan baleelka si aad u noqoto daawadeena ugu horeeya mahadsanid barnaamijkeena aynu guda galinaa sargaal sare oo reer Yurub ayaa waxa uu ku baaqay in la joojiyo xubinimada Ruushka ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay halka ciidamada Ukraine ay ku dhawaaqeen horumar cusub oo ay ka sameeyeen gobolka Donetsk ee bariga Ukraine isagoo tixraacaya dagaalka Ruushka ee Ukraine madaxweynaha golaha Yurub ee Charles Michel ayaa waxa uu yiri marka xubinta joogtada ah ee golaha ammaanka uu qaado dagaal aan sabab lahayn oo aan macquul ahayn oo uu cambaareeyay golaha guud ee qaramada midoobay xubinimadaas waa in si toos ah loo joojiyo aragtideeda waxa uu sidaas ku sheegay khudbad uu ka horjeediyay shirka golaha guud ee qaramada midoobay ee New York isticmaalka diidmada qayaxan waa in laga reebo laakiin waxay noqotay wax caadi ah sida aanu aragno taasna waxay u baahan tahay in si degdeg ah loo hagaajiyo waxa xusid mudan in xubnaha joogtada ah ee golaha ammaanka isla markaana xaq u leh inay diidaan go'aanada golaha ay kala yihiin Shiinaha, Mareykanka, Faransiiska, Ingiriiska iyo Ruushka. Khamiistii la soo dhaafay, golaha ammaanka ayaa goobjoog ka ahaa iska horimaad xooggan oo u dhexeeya Mareykanka iyo Ruushka oo looga soo horjeedo dagaalka uu Moscow ku qaaday Ukraine tan iyo bishii Febraayo ee la soo dhaafay iyo hanjabaadda madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ee ah inuu isticmaalayo hubka wax gumaada. xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa ku eedeeyay Ruushka in ay jeexjeexeen mabaadi'da sharciga caalamiga ah isla markaana ay xasuuq ka geysteen dalka Ukraine halka dhigiisa Ruushka ee Sergey Lavrov uu bilaabay weerar ka dhana siyaasadaha iyo sidoo kale dhaqamada reer galbeedka horumarka Ukraine dhinaca dhulka ciidamada Ukraine ayaa ku dhawaaqay horumarka dhanka Lyman ee waqooyiga Donetsk markii ugu horeysay tan iyo bishii May ee la soo dhaafay kadib ciidamada Ruushka ay la wareegeen gacan ku haynta deegaankaasi dhinaca magaalada Kharkiv gudoomiyaha gobolka Ukraine ayaa sheegay in ciidamada Ruushku ay isku dayeen inay weerar ka geystaan gobolka Kupiansk balse ay khasaare xooggan gaarsiiyeen oo ay dib u gurteen dhinaca kale mas'uuliyiinta taabacsan Ruushka ayaa sheegay in difaaca cirka ay iska caabiyeen weerar gantaal oo Ukraine ay la beegsatay Kherson wasaaradda waxay intaasi ku dartay in ciidamadeeda ay weeraro ku qaadeen ciidamada Ukraine ee ku sugan magaalooyinka Zaporozhye iyo sidoo kale Mykolaiv isla markaana iska caabiyeen gantaalada Ukraine ee lagu weeraray gobolka Kherson dhanka kalena jimcihii waxaa bilowday aftida loogu codeynayo ku biirista deegaanada qaar ee Ukraine kuwaas oo ay gacanta ku hayaan Ruushka deegaanada aftida loo sameynayo waxaa ka mid ahaa 4 gobol oo ku yaala koonfurta iyo bariga Ukraine gobolada Donetsk, Zaporozhye iyo sidoo kale Kherson iyo guud ahaan gobolka Luhansk 4 maalmood ee ugu horeysay ee aftida ay socon doonto ee ilaa iyo 27 bishan ayaa ku kooban dadka degan deegaanadaasi la taliyaha madaxweynaha Ukraine Mikhail Podolyak ayaa sheegay isagoo ka hadlayay aftida laga qaadayo dhulalka hoos yimaada Ruushka inaysan jirin nidaam sharci ah oo loogu yeerayo afti ka dhacday dhulalka la haysto muujinayana in waxa dhacaya aysan waxba ahayn laakiin ay tahay bandhig dacaayada oo loogu talagalay qorista ciidamada Ruushka dhankiisana ra'iisul wasaaraha Ukraine Denis ayaa waxa uu sheegay in arinta cid walba hadda ka walwalsan tahay ay tahay abaabulka Ruushka iyo aftida been abuurka ah balse aysan waxba ka bedeli doonin dadka reer Ukraine marka la eego yoolalka istiraatiijiyadeed waxa uu carabka ku adkeeyay ra'iisul wasaaraha Ukraine in Ukraine ay sameyn doonto wax walba oo ay ku xoreynayso dhulkeeda isla markaana saaxiibada Ukraine ay diyaar u yihiin inay ku taageeraan arintaasi marka laga soo tago sida ay diyaarka ugu yihiin inay taageeraan dib u soo kabashada dalka iyo sidii loo dhisi lahaa dawlad xooggan oo cusub oo Yurub ah waa sida uu hadalka u dhigay geesta kale madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa waxa uu ku baaqay cunaqabateyn dhaqaale oo degdeg ah oo daran kana dhana Ruushka aqalka cad ayaa sidoo kale sheegay in aftida ay soo qaban qaabisay Moscow ee Ukraine ay tahay xadgudub bareer ah oo ka dhana shuruucda caalamiga ah isla markaana meel ka dhac ku ah mabaadi'da madax bannaanida isagoo intaasi ku daray in haddii Moscow ay qabsato qaybo ka mid ah Ukraine uusan Mareykanku weligiis aqoonsan doonin G7 ayaa si kulul u cambaareeyay aftidan ay soo qaban qaabisay Moscow
iyaga oo sheegay in Ruushka uu doonayo in uu marmarsiyo uga dhigto sidii uu wax uga bedeli lahaa xaaladda dhulka Ukraine. Xogayaha guud ee ururka NATO ee waqooyiga Atlanta Jens ayaa waxa uu sheegay in isbahaysiga uu xoojin doono taageerada uu hayo Ukraine si uu uga jawaabo aftida oo uu ku tilmaamay mid been abuur ah. Dhanka kalena, madaxa siyaasadda arrimaha dibadda iyo amniga ee Midowga Yurub Joseph Borrell ayaa ku celceliyay diidmadiisa ku aadan aftidii ka dhacday Donbass iyo sidoo kale Kherson oo waddanka Ukraine ah. Yeelkeeda, madaxa siyaasadda arrimaha dibadda iyo amniga ee Midowga Yurub Joseph Borrell ayaa wareysi uu bixiyay waxa uu ku sheegay in Ruushka uu qarka u saaran yahay in uu ku guuldareysto dagaalka. Geesta kalena waxaa sii xoogeysanaya dagaalada u dhexeeya ciidamada Ruushka iyo sidoo kale kuwa Ukraine, waxaana lagu soo waramayaa in ciidamada Ukraine ay qaadeen weeraro aad u ballaaran oo ay ku doonayaan in ay dib ugu riixaan Ruushka. Hase ahaatee, waxa ay la kulmayaan iska caabin aad u xooggan. Ciidamada Ukraine ayaa doonaya in ay dagaal ka bilaabaan aagag badan oo Donbass ah. Hase ahaatee, ciidamada Ruushka iyo sidoo kale kuwa taageersan ayaa iyaguna waxa ay bilaabeen in ay duqeeyaan goobaha ay ku sugan yihiin ciidamada waddanka Ukraine. Inkastoo saraakiisha Ruushku ay sheegayaan inay guulo ka gaareen dagaaladii ugu dambeeyay ee dhacay 48 saac ee lasoo dhaafay, haddana wararka waxa ay tilmaamayaan in halkaasi waxyeelo ba'an ay kasoo gaartay ciidamada waddanka Ukraine, isla markaana la duqeeyay goobo ay ku sugnaayeen lana burburiyay rugo ciidan oo tiro badan, kuwaas oo ilaa iyo hadda tirada rasmiga ah askarta ku dhimatay aan la ogeyn. Sidoo kalena waxaa halkaasi lagu baabi'iyay gaadiid badan oo dagaal. Saraakiisha Ruushka waxa ay sheegeen in wax badan laga bedelayo qadida dagaalka, isla markaana Ukraine ay ka shalayn doonto weerarada hadda ay soo qaadayso. Dadka ku takhasusay arrimaha amniga, gaar ahaanna il gaar ah ku haya dagaalka u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine, waxa ay sheegeen in dib u gurashada ay sameynayaan ciidamada Ruushka ay tahay laba arrin midood. Arrinta koowaad oo ah in Ruushka uu doonayo in uu adeegsado hubkiisa nuclear-ka. Arrinta labaadna waa in Ruushka uu doonayo in uu tijaabiyo awoodda ciidamada Ukraine inta ay la eg tahay, isla markaana markii ay soo wada galaan aagagga loo baneeyay hal mar lagu qaadi doono weeraro cir iyo dhul ah sidii hore u dhacdayba kana dhacday deegaano badan oo waddanka Ukraine. Dagaalada Ukraine ayaan la saadaalin karin sida ay noqon doonaan ugu dambeyntii. Hase ahaatee, reer galbeedka ayaa gadaal ka riixaya dowladda Ukraine una sheegaya inay dagaalka sii wadaan, waxaana ay ku taageeraan hub iyo sidoo kale xogo sirdoon. Taasina Ukraine ma aha waxay u baahan tahay, ee Ukraine waxay xilligan u baahan tahay awood ciidan iyo sidoo kale sidii dhulkeeda ay uga saari lahayd ciidamada Ruushka. Balse reer galbeedka oo iyagu u muuqda in hal lug ay dhanka Ukraine taalo, lugta kalena dibadda taalo, ayaa gadaal ka taagan Ukraine. Haddii xaaladdu xumaatana halkaas ayay isaga carari doonaan. Aragtidaada daawada qaybta hoose commentiga inoogu reeb. Mahadsanid. Barnaamijkeena falanqeynta xogta caalamka naga intaas. Barnaamijka mid ka xigeentan ku kulmi doona. Nabadgelyo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.